marka la yiraahdo dir muxuu yahay dir waa dir irir Soomaale magaciisa weyna waa aji wey aji haddaad maqasho magacan ajiba haddaad maqasho waa dir wey waxa weeyaan xeer aji baa la yiraahdaa jubooyinka waxa lagu maamulaa xeer aji dadku aji un bay iska leeyihiin war aji waayo ajida waa dir wey waa in loo garto horta ajigu inuu heer yahay marka dir la yiraahdo ama ilma aji waa afarta ay kala yihiin waxa weeye waa madooba dir waa ciise waa taqaanaan madaluug dir waa samaroon iyo niman xaggan koonfurta degan iyo Itoobiyaba mahadir waa surre iyo xiniftire waxa la yiraahdaa maxamed xiniftire waa isaaq maxamed biyamaal maxamed quraan maxamed oo nimanka garaha la degaa iyo baajamaal maxamed oo reer hiirana iyo qalaaf waxa weeyaan afarta ilma maxamed sidaa weeyaan markay noqoto madaxweyne dir waa maxamed madaxweyne iyo cali madaxweyne maxamed madaxweyne curada cali maxamed madaxweyne nimankan magaadle ee dhalay isaaqa qaybta ugu weyn qaybaha ugu waaweyn qayb kamida dhalay oo habar magaadle maxamed madaxweyne iyo akishaha ya waxa la isku yiraahdaa maxamed madaxweyne nimankan jiidale wardeyle rag badan oo booranta ku jira leeyile gurale tirada badani waxa weeyaan waa cali madaxweyne weeyaan cali madaxweyne dir weey marka dir horta sida uu kala baxsan yahay waa sida la fihiisina waan inin kala sheegay ciise waa 6 weeye waa uu kala socotaa 6 oday weeye sidaas horta ilma dir iyo ubadkoodii sida weeyaan haddii aan nidhaahno maxaa dir kala kaxeeyey oo beelaha la mid ah daarood iyo hawiye iyo u midaysan yihiin dirna u midoob waayey dir wuxuu ahaa dad la geli waayey waqtigii gumaysigu uu geli waayey oo boqortooyina waqtiga boqortooyooyinkaasi ka hor gumaysiga ay jireen waxa kamid ahaa boqortooyadii waamo madaxweyne dir ay lahaayeen ee wardayda waliba boqortooyadii waaqloobay ee mahadir ee biyamaalku ay lahaayeen boqortooyadii mahadir ee isaaqu ay lahaayeen ee herar boqortooyadii ciise iyo godobirsay ka dhaxaysay ee awdal boqortooyadii ciise iyo haddana gurgure ka dhaxaysay ee cifad ee diri dhabo boqortooyadii shawa ee cali madaxweyne boqortooyadii baali ee cali madaxweyne baali tan cifad iyo herar way islahaayeen todobada boqortooyo ahayd gumaysiga kor dad la geli waayay bay ahaayeen oo la qaban kari waayay qasab waxay noqotay markaa in la qaybiyo lagana qaybiyo xagga dhaqanka iyo abtirka si loo kala fogeeyo oo ay dadkan weligood isku xadidamin sida daraadeed gumaysigiina wuxuu noo raacay dadkii Soomaaliyeed markii xurriyad la helay halkii gumaysigii ayuun bay ka sii bilaabeen waxay noqotay in dir la dagaalamo in dir la kala ilaaliyo in dir la kala fogeeyo in la yiraahdo maxad sutiin in la yiraahdo ninka isaaq iyo ninka biyamaal maxay bay isu yihiinba halka in la yiraahdo waxaaba jirtayba dawladii hore in la yiraahdo isaaqo dirmatid in la yiraahdo godobirsay dirmatid in la ciiso dirmatid in la yiraahdo akisho dirmatid in dirba in lagu soo reebo reer yar oo suraa iyo anagoo gaadsan oo naga fujin kari waay horta runta marka laga hadlayo waxa weeyaan dhulkii aynu u soo kacno dhulka la yiraahdo British Somaliland Territory waa ogtiin yaa majority away dadka ugu badan way Djibouti aad aragtay xeebta ka bilow ilaa iyo hadaafimo hal reer oo ciise la yiraahdo daadsan
dadkan ormaha id arkaysan ee kiliilka afraad la yiraahdo boqolkiiba 80 waa madaxweyne dir boqolkiiba 80 madaxweyne dir dhulkan aad arkayso ee koonfurta goboladan ka soo bilow magaaladan la yiraahdo bari wadanka gobolkan bari boqolkiiba 40 baan gobolka mudug boqolkiiba nugaal boqolkiiba 40 baan gobolka mudug boqolkiiba 45 baan gobolka galguduud boqolkiiba 40 baan gobolka hiiraan boqolkiiba 45 baan gobolka shabeellada dhexe boqolkiiba 40 baan gobolka banaadir boqolkiiba 45 baan oo banaadir maxay tahay luqada carabiga bal macnee bina maxay tahay bina waa building waa dhismo dirna waa dir banaadir ha boqortooyadii mahadir meeshii ka talin jirtay fadhiyi jirtay way waa banaadir kelmadda banaadir lafteedaaba sidan ku samaysanba waa banaa u dir way dhismihii dirka way marka sidaa wax dashay okay gobolada shabeellada hoose boqolkiiba 95 jubbooyinkana boqolkiiba 80 labadaba jubba marka lagu yiraahdo markaan u soo leexano waxaan maanta la isku hayaa maxay tahay waxa maanta la isku hayay dib u heshiisiintan aanu maanta u soconno shirki Addis Ababa ka dhacay wuxuu ahaa dawladda waa ku soo dhaweynaynaa annaga oo systemka kala shaqeynayna systemkuna uu yahay kii markii hore annagu aanu dirsanay oo wasiirka iyaga arrimaha dibadda Foosiya Xaaji Aadan balaanka wanaagsan ee ay u leedahay wasaaradda arrimaha dibadda iyo khibradda siyaasadeed ee qodada dheer ee ay leedahay ayaa Soomaaliya maanta hagaysa ra'iisul wasaare ku xigeenka isla markaana ah wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga xaqiiqatan Soomaaliya wajigan cusub ee maanta u furmay waa Foosiya Xaaji Aadan baa wadada lugta u saartay marka xaqiiqada laga hadlayo waana gabar dira waxaan rabaa inaan madaxweynaha halkan ka salaamo inaan dhammaan guddiga fulinta oo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo ku xigeenkiisa ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga dhammaan wasiirada waxaan rabaa horta inaan halkan ka salaamo dawladda golaha baarlamaanka waxaan halkan ka sheegayaa marka hore annaga dawladda waa ku dulmana sababta oo ah afarta janan ciidamada midna ma lihin jananka nabad sugidda ma lihin haddaan dirnahay jananka booliska ma lihin jananka militariga ma lihin jananka muxuu ahaa haddii la nahayo asluubta iyo ka booliska iyo ka military afarta ciidan ma lihin jananadooda agaasimayaasha madaxa bannaan ma lihin sufaradii dhuub waa kan laga qaaday maxaa dawladda santarkii ay beesha dir horta ugu tala gashay sideedaba haddaan u soo noqono shirkan aanu u soconno maanta waanu tagayno aniga habiilba aanu ka qayb qaadanayno nabadda waan soo dhaweynayna gaal iyo muslimba wixii nabadda hortaagana waan cambaaraynayna laakiin nimankan federaalka la ordaya hal baan ka leeyahay al-shabaabka iyo argagixisadana hal baan ka leeyahay nimankan federaalka la ordaya adduunyada federaalka 40 iyo dhowr dawladood baa federaal caalamka federaalka aan qaadanaynaa waa kee horta maka Mareykanka qaadanaynaa maka Kenya qaadanaynaa maka Ethiopia qaadanaynaa haddaan qaadano ka soo qaad federaalka Kenya hadda ay tahay annaga dir gobol dhan baan leenahay taana rivaliyad waa federaal Misielo oo ay beesha isaaq hadda kursigii koobaad haysato oo Eastern iyo Tana River labadaba annaka iskale haddaan dirna waana gobolada raacay qolana ay xeebta muslimka raacday markii in fidii la qaybiyay qolana ay raacday Kikuyu Island waxaan ku sheegayaa haddaan nidhaahno bal hadda federaalka Kenya gobolka North Eastern Province la yiraahdo ee Soomaalidu ay degan tahay ee markii Tana River iyo Eastern laga reebo ee laga bilaabo magaalada Garis ilaa iyo Mandera gobolkaas
كوبيو طبعا مدنا كسوقش وانا كني لبا بقولو كيلومتر مركا اي نقطه سنت رومكا from Nairobi to Gizi وصدح بقولو كيلومتر وحكسو قلا صدح بقول وحكسو قلا أفرتن إيا لبا مدنا وانا صدح بقولو كيلومتر محيالي دقاليه بايالا ورشديه بايالا بيريه بايالا ددكي بايالا حقنا ودول وين ودي سرتيا وحبا أقولين سادرادت بكوبيو طول مدنا وقسو قليسا حقنا دقاليه إيا ددكي بايالا أدونك ما حلوقة بسدا وحلوقة بسدا والمان وانفوت قبل كرشب الله ده هذا أصور دعوة وحكدت بدن يهي بري نقال مدب يقل جدود ولا يسكت دريبو كدت بدن تلالكي وقدم بيجي يقياستي وزارة الربا هدي بدون أنو كشقيني عدي تلالكي وقدم بيسي فرق صبرية مالين اللي هذا أوصل إلى شوكة أيوة هنيك تلالكي وقدم بيجي عروتي اللي قط تلالي يا لجوء قاد لا هذا تشوبا مركل لا إيجو بل كسوقات دقم حجر هذا اللي هذا محمد سياد مركو سيب حيي ومقعابي باكرتا يدقم بدأ اللي هذا والله برير لوجو كلا شيء ومنا كنت أنا شيء إن برتير لوجو شيء منا مقابل لوجو شيء يدقم هذا كم من بلسو ميسان ما يسكت نقالة ما يسكت ضبة مركا ما يسكت ترى يقادن كران وما يسكت تي يقادن كران ما قادن كران صدح بقولوا ديجان إن كبدنا نقول بريدة بعد كم من حوسي مانس وطول ولي بجيبي جيدا أي جمهورية دوتا شيل بسيطة أكلة تدبات طولها حوسي مانس مقالة دوين وشيخال نلد جنت هاي مويه تدبات كمان أنك أسكله صدح لهم بقولة كم من أنك أسكله فرم مقدوشوا حالك مدينة مركا أتقبل لوضو إلا أي حدودنا عدنا ما دحدقنا وحنو إسكو هينا صانع مركا اللي يلاهدو talyaanigu soonu sameeyay meeshan ka wada hadlaynaa waa banka jiira iyo afmadow ayaanu ka wada hadlaynaa raggan soo dooblabaya ee halka durbaanada soo tumanaya meesha laga wada hadlaya waxay noqonaysaa banka jiira iyo afmadow dhulkan Kismaayo ay ku taalo ka wada hadlamayno way shaqaba kuma ay laha Kismaayo meesha ku taalo waxa la yiraahdaa cal iyo kafar xeebta oo dhan kafar baa la yiraahdaa dhulka barigana cal baa la yiraahdaa qodaxda inta leego لقطة يعرقوا لبر رافلو ما بكون ولا انكر لمن كان صور ده يدد كود ولا لبر رافل يدغدان دول كان على يده الجيلة كلهم لمن كان نلد جني وقال شعل وان من كان اللي يده دقون جيد وان من كان اللي يده عرملة وان من كان أيوم بان نلد جني غير بركانونا جاتن مدلوق هدال المهي فوق عمر قريها مقالة ده مركز يكتب يا علم عبد اللقوس كجوريا بدل علم عبد اللقوس يا حسن دايرهن راعون محوها عمر موسى يا كجوريا بدل أو علم عبد اللقوس يجين وأنا من ضمن موسى يا كجوريا بدل يا كهنت بدل هبين بنجوري مال كل شيء كويدي ميال دوري مجال اللقو قاطع حنلانا هاي أنا قلنا نبض بان ربنا نبض دانو سوتشي سنينا درنا ومديسين هاي bariga Afrika dirka degan maanta waa cusub baa u bariyay annaga hoggaanka u qabanay waa isu keenaynaa aniga Habiil Ismaaciil Umar Geela baaq baan u diraynaa gogol iyo shir dirleeyahay ayaanu gogol dhigaynaa Djibouti niman baalaha jigjigaanu gogol dhiganaynaa waa amaanaynaa jigjiga gogol dhigta jigjiga nagama lihidin annaba waa dhigan karnaa دقنا يساندكت وحكي صباحنا وقيميننا أننا Djibouti بانو دقنا وحكي صباح واركيسين عندنا دول كذا كما صعنا عندنا اليدين مني حانو سو تشيت سنة يعني ما كان كونفور قلب الله بحياة ماشى كقيل قيلي كونفور قلب أنا قم مدونه يون من كاس دقيل ك ودقيل هرتا سيد سبا دقيل كأني قال لي يقفوجين قبيل كلا الله بحنا يسوي شيء ده وعلي مدحوين در قرآن يونا وبيمالي يساق ولا الكود ضدك إليين أنا قال مكواس يقدر سنة ميواني مقت مركل إلى هذا مرفلها مع اللي وين واعي ميانو نين ساقاهين
liisa miyaanu gaadsan iyo arab ahayn liisaan miyuunu boqolkiiba 80 dir ahayn dadka la iga fogeynaya ee koonfur galbeed loola baxay halka Shariif Sakiin u sii wato yaaban garan lahay ha ahaato koonfur galbeed in la sameeyo kama xumin qaabkii anagu aanu u wadnay sida ma ahayn si ka wanaagsan bay ahayd laakiin waa ku degdegteen waxaana uun kamidtiin waxan wax boobaya laakiin dad aanu hadda anagu dhibaato u hayno ma tihidin marka laga reebo ninka gubernatooraha marka ka ahayd dadka gubay maalin wuxuu shir ku qabtay Oslo oo nimankii Mooryaanta ahaa ee dhulka iyo dadka baabi'in jiray uu u yeedhay oo halkaas ugu yeedhay kaasna waa la xisaabtay ma hadda xamar baan ku socdaayo waa is arkaynaa waxaan ku yiri qoladii halka joogtay dirka ahaa markuu isku kendilay inagii nimanka habar gidir walaalaha inay irirka isku kendilay haddana qurbaha isku kendilina fidmadiisu hayna dhaaf الفتنة أشد من القتل دكتور أنا سلطان وعه وحو هينا دافو بانكوري سيداسان اسكاغاسترون نغداف سيقولي بقران يومي وتوفوي وتوف يقران قروا وكواليشن والله بقولوا اسكو درسنتو ابتي سوا marka waxa weeye tuufka ya ay weey sida loola muu dhaqmeen hadii quraan yooyay dadkii siiyay ee xukunkan u qaban qaabiye Cabdikaafi nin leeyahay quraan yoowa yaa nagu baroortay aniga Cabdullaahi Ismaaciil oo yiri waligayo meesha jaga kamaanu qabanay maanta aan loo dhiibo farsoolay iyo awdheeglay in yar ka degan yiin markaasaan niri orod noqo anagoo Nairobi joogno hadda waba kaaba anagii baa meelan ka istaagnala geel ninkaad soo gelisaa ka bixiyay waxaan ku soo koobaynaa Somaliland walaalaheen ruwaaqada iyo horumarka ay gaadheen aad baan u soo dhaweynaynaa Soomaaliya oo dhan baa degan dir kala degan daarood baa degan kuwa dhul kale baa jirta Somaliland waa dawlad ka dhaxaysa dir iyo daarood iyo hawiye hataa fiqshini baa degan oo muxuu ahaa cid kasta degan annaga biyo maal baa degan oo madiigaan soo dabruba biyo maalma magaalada bartankeeda Hargeysa laga doortaa cid naga leh ma jirto marka waa soo dhaweynaynaa Djibouti walaalaheen weeye aad baan u soo dhaweynaynaa dhinaca dhaqanka dadka waa ka midaynayna siyaasadahana waa lagu kala duwanaanayaa shanta dal ee Soomaalida gumaysigu u qaybiyay dirka degan waanu midaynaynaa wuuna midoobay haddana shirka annaku nabad baanu la tagaynaa madaxweynaha iyaga noo yeedhay iyo wasiirka iyaga arrimaha dibadda nabad baan la tagaynaa system kana waanu ilaalinaynaa dawladda Somaliland madaxweynaha guddiga fulinta golaha baarlamaanka madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha golaha guurtida dhammaan golaha guurtiga xubnaha muxuu ahaa siyaasiyiinta aqoon-yahamiinta bulshada dadweynaha dhammaan halkan aanu ka salaamayna waxaanu u rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo waxaana Soomaali leenahay ku dayda Somaliland ku dayda oo sida Somaliland horumar sameeya oo sida Somaliland nabad dadka u horseeda oo sida Somaliland dhaqaale tabca ayaan leenahay Somaliland waxaan leenahay barwaaqooba waxaana tihiin SSDU idinkay idin ilaalinaysaa